madaxda dhaqanka ee salaadiinta Somaliland ee gobolada kala duwan ka soo jeeda ayaa halkan isugu yimi bayaan ayaanay imika warbaahinta la wadaagi doonaan oo hadda warbaahinta akhriyo doonaan 16 bishii Rajab 1444 oo ku beegan 7 bisha labaad 2023 waxaa shir ballaaran isugu yimi saldanada Somaliland foolaadkeedii inta madasha ku sugan iyo inta ka maqan oo aan isku ognahay shirkaas oo ay saldanadu kaga arrinsanayeen dhibaatada ka dhacday gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood maadaama oo ay salaadiintu u taagan yihiin arrimaha nabadgelyada iyo walaalaynta ummadda sida aynu wada ogsoonahay waxaa jirta in madax dhaqameedku meel kasta oo ay joogaan ba ay u xil saaran yihiin arrimahaas aan kor ku soo sheegnay sida daraadeed shirka saldanadu dhaqanku isugu yimi waxa ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan intii ku dhimatay dagaalada ka dhacay magaalada Laascaanood waxaanu leenahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto eheladoodii iyo dhammaanteedna sabir iyo iimaan ha inaga siiyo waxa kale oo aanu Ilaahay uga baryaynaa intii ku dhaawacantay in Ilaahay u boogadhado oo caafimaad degdeg ah siiyo intii ku barakacdayna iyagoo nabad qaba Ilaahay baradoodii uu ku soo celiyo qodobka labaad waxaan ugu baaqaynaa labada dhinac ee dagaalku ku dhex marayo magaalada Laascaanood in ay xabadda iyo dagaalkaba ay u joojiyaan si shuruud la'aan saddex waxaan ugu baaqaynaa labada dhinac in la isugu yimaado miiska wada hadalka arrimaha taaganna lagu dhameeyo wada hadal iyo walaaltinimo afar waxaanu halkan ku cadaynaynaa haddii aanu nahay saldanada Somaliland inaanu diyaar u nahay arrintaa ka shaqaynteeda iyo nabad raadinteeda meel kasta oo ay nala gasho wabillahi tawfiiq inta maqanba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad war saxaafadeedkayga maantu waa inta Suldaan Yuusuf noo akhriyay weeye waa dhig joojin weeye waxaan rajaynayaa inuu ku hadlayo afka duqeyda in loo dhaga nuglaado in la maqlo ayaan aad iyo aad runtii aan ugu dardaarmayaa waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba ka xunnahay dhiigga dhacaya iyo qaxa iyo dhibaatada meesha ka jirta aad iyo aad bay noo damqaysaa aad baan uga jiridholcoonaynaa aad bay xumaan anugu aragnaa in wixii wada hadal ku dhammaan lahaa inay caynkaa u dhacdo aad baan uga xunnahay inta haddaan ka imaado wase loo soo sheegay oo annagu haddii aanu nahay duqayda waxaanu diyaar u nahay geed dheer iyo geed gaabanba inaan u korno haddii Ilaahay yidhaahdo in aanu arrintaa iyadaa wixii tamartayadaa ama dhaqanka ummadda Soomaaliyeed lagu yaqaanayba in aan haddii Ilaahay yidhaahdo aan magaranaysaa ay ka qabanno waxa kaloo cad ummadda Soomaaliyeed ama dhaqanku inuu xuduudiyo xadaawinu kala lahayn meel kasta wax ka dhacaana inuu u siman yahay si buuxda haddii Ilaahay yidhaahdo isaguna ugu wada yimaado inta haddaan ka imaado waxaan waa dadkeennii weeye waxaan ugu baaqayaa waxaan xasuusinayaa dhinacay doonaan baa ka hadlaane dhankay doonaan hays xijiyaane dadka ku mashquulsan buunbuuninta arrimaha ka socda maanta Laascaanood waxa weeye baraha bulshada iyo tifyada buu soo fadhiisanaya waxaan ku dardaarmayaa haybtay doonaan iyo haggay doonaan baa ka soo jeedaane inay arrintaa iyada ka waantoobaan
in ay sidii uga shaqayn lahayn walaalnimo iyo sulx ay arinta u soo jeestaan waxa weeye qabiilna wax looguma tari karo qolana wax looguma tari karo kii xukuumad ku taageerayana waxba uma tari karo kii cid kale ku taageerayana waxba uma tari karo waxaan ku dardaarmayaa waxaan ku waaninayaa war waxay ahaan jirtay ha loo daayo arinta ciddii wax ka qaban karaysayna ka qabo ciddaan wax ka qaban karayna ka daaya buumuuninta iyo qolooyinkan iyo haybahan faraha badan leh ee la sheegayo weeye Soomaaliya hadda hayb ku kala baxayso waxa weeye deynta dagaal soo socdo waa la garanaya dhibta dhacdayna waa la garanaya waqtiga qaatana waa la garanaya waxa weeye maanta waxa wanaageegu waxa weeye runtii in ciddii wax ka qaban karaysa ka qabato ciddii kalena afkeega ay ka haysato arinta aad iyo aad baan uga xunnahay aad baan uga tiiraanyoonayna baaqayaguna maanta intaas ku dhan yahay waxaan u soo amba baxay hadalka u soo jeediyay inaan afkooda asha ku duqeyda ku hadlaya in ciddaan wanaag waxba kaga qabanayna xumaantaada aad ka daysatid halka doontaba ka soo jeedo taasaan ku dardaarmaya waxaan kaloo ilaahay ka rajaynayaa inuu la joojiyo waxa weeye horeba tacsada waynu u jeedinay in mar labaad mar saddexaad baa arrinta ayada waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay in lagu barakacaan ka xunnahay in lagu dhintaan ka xunnahay in lagu dhaawacamaan ka xunnahay horeba waan u sheegnay waxa weeye waxaan hadal ku soo gunaanadayaa waxa weeye arrinta ayada qab meeshii doonaba hala jooge in loo guntado dadkaan la hadlaynay ma xukuumadda ma dhinacyada kaleba ha ahaatee inay u dhega nuglaadaan shuurada xabadda shuurlaan loo joojiyo hadalna dib loo isku soo noqdo waxa weeye intaasaan ku dardaarmaya